bishii Abriil markaan shaqada bilaabay shirkadaas waxay nala soo shaqeynaysay ilaa iyo 30kii Oktoobar 6 bilood ayay filayaan waqti ah inay shirkadaasi nala shaqeynaysay oo kaliya isla markiina bishii Oktoobar dhamaadkeedina aniga ayaa shaqada ka joojiyay marka waa iska been abuur kaba dhig in midaas run tahay wasiir waxaad ku eedeysan tahay lunsasho laba lacagood oo kala gooni ah haddaad mid beenisay tan kala marunba sidoo kale xaqiiq ahaanshaha documentiska aan soo bandhignay iyo in baaristu kugu sameeyay xafiiska hantidhowrka ma aadan beenin haddaba haddii aan ku raacno taada oo aan ka goyno xisaabta maqan shirkadda Modern Technology waxaa jira dakhli ay wasaaradda qaban jirtay oo ka madax bannaanaa shirkadda Modern Technology oo aan lagu shubin qasnada dawladda garoonka diyaaradaha oo hoos taga wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa ka mid ah goobaha baarista lagu sameeyay dakhliga ka soo xarooda kirada guryaha maqaayadaha ku yaala airportka iyo parkinga gaadiidka lacagtaas ayaa loo qaadaa qaab bil ah hantidhowraha warbixin uu qoray ayaa lagu yiri dakhligan waxa lagu qaban jiray buugaag wasaaraddu samaysatay macnaha wasiirka waxa uu samaystay rasiidyo u gooni ah oo lacagta ku qabto si aan xisaabtaasi loogu wareejin wasaaradda maaliyadda waxaana lacagtan loo isticmaalay qarashaad ku baxay safarro iyo adeeg tusaale wadarta dakhliga la qabtay iyo dakhliga la isticmaalay ayaa isla eg taas oo ka dhigan in gebi ahaan lacagtan la isticmaalay ogow wasaaradda waxay leedahay miisaaniyad u gooni ah oo loogu talagalay in lagu qabto dhammaan howlaheeda haddaba Maxamed Cabdullaahi Omar waxa uu ku xadgudbay sharciyadan sida sharci number 317 ee soo baxay December 17 1962 qodobkiisa 34 oo sheegaya in dakhliga la qabtay aan la isticmaali karin kahor inta aan qasnada dhexe ee dawladda lagu xareyn iyo sharci number 317 ee soo baxay isla sanadkaas qodobkiisa 30 oo sheegaya in dakhliga lagu qaban karo oo kaliya buugaag ka diiwaan gashan xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda gabagabadii waxa habooneyd in hantidhowraha uu ku bariyeelo ama uu cadeeyo inaan isaga iyo adigaba kugu been abuuranay halka agaasimayaal adiga ku hoos yimaada iyo shaqaalaha wasaaradda ay difaac ku noqon lahaayeen iyagoo shaqadooda u baqaya